فرنسا صدو أرتين سمانا الاعترافه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. sidaan u arkaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aadna waan u soo dhaweynayaa sababtoo ah 34 sanadood wixii aanu baabaynay aanu qeyrka xigaha uga hadhay waxa idin nala ictiraafka ugu horeeya waxaanu ka sugaynaa Ilaahay ka labaadna bini'aadamka ka sugnaa waxa weeye caalamka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo halkan kaga faa'iideysanaya waxa weeye waxay Soomaalidu tiraahdaa warka meel qabay waxara riya kamaal anigoo jeclaa ninka la yiraahdo madaxweynaha la yiraahdo Xasan Sheekh iyo madaxweyne Umar Geelle inay hor aqoonsadaan oo markayna aqoonsadaan marka wixii dawladda kale ku soo biiraan waxa weeyaan waa ka hadheen kaalintiini maadaama nala aqoonsado aad iyo aad ba hadhow idinka waxa idinku dhacaya wajiga baxba idinku dhacaya marka aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan madaxdeeda maxaan raahday ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa marka Soomaaliland waxaan u jeedaa meel ay joogaan ba inay mid ahaadaan oo aan laga dhex faa'iideysan baan aad iyo aad u faraya waa mahadsantii محمد إبراهيم بالله maxaad ugu soo dhaweynaysaa su'aashan ku diin Faransa sababtay Soomaaliland اعترافه الله إن الاعتراف ولا الآد بانو جعلهاي وحنا هيولي بها الأبور كقبل كأبوان قري بالله دها تحير بان سو جدين له هذه الاعتراف ولي بقى إنه رمودان جعله ها وعلى دوام مالي سروس معدي كرامة لسكرشة كدورو بالشيء وسركع وأنا بالله سيحدو سجن يهي أمامك يسوين لوقت كي يصبح ويا خيرات وثمانية سداد ما يركب سجن ولا شيء سهل أو ملايين سفي سعلان كاسد حمد أبقى عن تي توحيد كلا قصة جاي ومدي هاو سركع سان كي يرسل كنا وحي ساك الشجن اعتراف كي يصبح ساداش وابو وبالله التوفيق آدم مسؤولين آدم ما سنت ولا ولا ما سنت مقع خضر هذين خضر مسؤولين مسؤولين بربتي في سؤال شو دين فرنسا صدق أرتين سمانا الاعترافه الله هرتاد بانو كفر حي سومالان ولو مدحوين المصبح هادوغا يلي waxaan la ra'iisul wasaaraha Yuhuudda waa inaad ku martiqaadaa saxiixa maalinta la saxiixay badda sababtoo ah dadka muslimiinta sunniyiintu way nagu cadow waxaan doonayaa in maxay tahay dadka muslimiinta ee ajnabiga ee Soomaaliland ku nool sharci laga soo saaro dhigaya in dadka dalka laga masaafuriyo qofka masiixiga ee aan wadanka u dhalana laga dhigo muwaadinka labaad ee Soomaaliland taasaan jeclaan lahaa madaxweynaha qaranka aad baan u salaamay adigana aad baad maasantay waxaan ku qorshays haddii la ictiraafo wadanka waxay qorshaysan inaan noqdo sirdoonka qaranka sida dadka cadawga Soomaaliland ku aan u soo xidho taasay qorshaysan waan maasantay walaal soo dhawala dhawaay walaal magaca jeceelow jeceelow ku soo dhawnay burrabti fi su'aashan ku diin Faransa sababtay Soomaaliland اعترافه waayo walaal waan u baahanay in la ictiraafay waan ku faraxsanahay Soomaaliland اعترافه maxaa ku qorshaysan adiga noqoto walaal waxa isleeyahay madaxweyne noqo soo dhawala wandhow magaca عاول عبد الوصل عاول ku soo dhaweynaya su'aashan ku diin Faransa sababtay Soomaaliland اعتراف boqol kiiba boqol waa soo dhaweynaa Soomaaliland اعتراف maxaa ku qorshaysan noqonaysaa يا شقافور بافورمي لهايو وطن كاقرا فورمي لهايو با خلاص سocon لهايو وطن كا ير سرو noqon lahaa إن شاء الله دو marka maxaad weydiiyaa magaca Ciise Xasan soo dhaweynaya soo burrabti fi su'aal ma ku diin Faransa sabab artay Soomaaliland اعتراف soo yar dargo Soomaaliland hadda aan اعتراaf haysana oo haystaa اعتراaf ma naga u baahan waxaan ku filanaa su'aasha ku diin wandhow ay walaashay magaca منير سال حسن ولا منير بربتي في كوسو دوينيا ساشن كويدين فرنسا صدق أرتين Soomaaliland اعترافه ما شاء الله تبارك الله ولا هرت عادي عاد بنقول فرحسنا ما قالت وطلبات اعتراف كسوماليland هرت اعتراف ما بعنا هوري ولقيت باقونسيga u haysatay aqoonsiga namadii ma ka bilaabmay ma اعتراafka Soomaaliland waligeena muqaddis buu ahaa muqaddis buu ahaanaya taan aad aad baan ugu faraxsanahay dhawaatinta dabaad ilka dhawaatinayana waxaan leeyahay welcome madaxay mar walba noo saarantay Soomaaliland hadii la اعترافه maxaa ku qorshaysan noqot la ilaaha illa allah dadka ugu horeeyay marka Soomaaliland sal loo اعتراafo wax ka bedeli doonana إن شاء الله شيء soo dhaweynaya walaalo su'aashan ku diin Faransa sabab artay Soomaaliland اعترافه Soomaaliya waa ku noqona Soomaaliland tan gacmaaga ka buuxda ma lahayn taasayna Soomaaliya aadmiina waa marmale dhawaay wala dhawala wandhow walaal magacaygu waa Maxamed Duux Abdilaahi waa afayeenkii ummadda Soomaaliyeed afayeen ku soo dhaweynaya su'aashan ku diin Faransa sabab artay Soomaaliland اعترافه Soomaaliland walaal in la ictiraafaad aad baan soo dhaweynayaa waxaanan Ilaahay ka sakow aan ku mahadinayaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi haddii Soomaaliland la ictiraafo waa xil baan isleeyahay qabtay waan soo sharaxaya baarlamaanka meelaas ama wasiir wuxuu baan doonayaa ma santay walaal
محمد أحمد محمد الله soo dhaweynaa ku soo burrab TV session ku weydiinay xafaransa ee saad arkan Soomaaliya اعتراafo والله Soomaaliland اعتراafkeeda والله aad iyo aad ayaan u jecelahay la اعترافا laakiin waxa la waayay geelo ninka waala bawdada weynaan helay barmaaliya taawalay waayo ismiil heli waa اعتراaf helina لا maxaa ku qorshaysan noqon lahay hadaan helo اعتراafka maxaad noqon lahay adigu ku qorshaysan noqon lahay walaalay waxaan noqon lahaa wax kasta qalbigayga iyo niyadeedu jecel yihiin oo markaa niyadeedu ku weyn ayaan qorshaysan lahaa